halkani waa dugsiga sare ee Faarax Jaamac Secretary ee degmada Wadaamago ee gobolka Saraar waan saaka kula kulmay iyagoo ku jira taxanaadkii waxaana ugu horeyn xaaladda dugsigaasi ga warbixiyay maamulaha guud ee dugsigaasi iyo macallimiinta dugsigaasi waxaanay baaq u direen qurba joogta ka soo jeeda degmada Wadaamago iyo cid kasta wax ku tari karta baahida dugsigaasi kaasi oo sheegeen in shaqo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi aanay wax mushaara ay qaadan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah maamulaha dugsiga sare oo Faarax Secondary School waxaan halkan kasoo gudbinaynaa saaka waxooga information oo ku saabsan dugsigan sare dugsigani horta marka hore wuxuu socdaa si toos oo maalin walba waa la dhigtaa 5 subjects baa maalintii la qaataa ardaydu iyo macallimiin diyaar u ah baa u jooga iskuulka oo dhalinyaro ah oo dhawaan yimi maalintii 5 subject baa la qaataa iskuulku wuxuu socdaa sida iskuulada kale maxaan ku raahdaa dalku leeyahay macallimiintaasi iyagoo 5 macallin ah ayaa mid quri payroll yahay oo ama payrollka ku jira oo mushahari uu yahay oo payrollka macallin qura ayaa kaga jira afarta kale waxa weeyaan bilaa mushahar sidoo kale ardayda iskuulka dhigata numberkoodu aad buu u yar yahay oo ma aha wax kaafi kara macallinkii oo maxaan ku raahdaa baahidiisii dabooli kara iskuulka qurba joog ama jaaliyad baa gacanta ku hayn jirtay muddo dheer oo lacag ka soo bixin jirtay oo ku kaabi jirtay macallimiintaas muddo hadeerto ilaa dhowr bilood lacagtaas way joogsatay anagu ma naqaan sababaha hadeerna isweydiin mayno waxaanu baaq u diraynaa markaas qurba joogtii lacagtaas iskuulka ku kaabi jirtay iskuulka si fiican buu u socdaa indhihiina marxaatiya inuu iskuulka sidiisii u socdo oo macallimiin u hagarla ay ardaydii u joogaan markaas waxaan ka codsanaynaa qurba joogtu maadaama ay intii hore dhan u soo dhabaradeegeen oo persistence iyagu qaateen oo ay soo sameeyeen muddo dheer inay iskuulka contribute gareeyaan inay lacagtii sidii ugu soo diraan macallimiinta oo hadeer kharashkii aad iyo aad ugu liita inta kadib waxaanu joognaa maanta dugsiga loo yaqaano Wadaamago Secondary School ama Faarax Secondary School Wadaamago hadba sidii loo yaqaan waxaanu ku suganahay degmadii Wadaamago anigoo ku hadlaya afka maamulka dugsiga iyo macallimiintiisaba waxaan doonayaa fursadan inaan uga faa'iideysto xogta dhabta ah ee dugsiga iyo waxa weeye baahiyihiisa iskuulkan Faarax Secondary School waa iskuul ku yaala degmada Wadaamago waa iskuul la aasaasay oo la dhisay taariikhdu markii ahayd 2012 ilaa 2011 dugsigani waxaa dugsiyo badan soo jiray midho badan ay ka go'een tacab fara badan la geliyay dugsigan waxaa ka baxay ugu yaraan 5 secondary ayaa waxa weeye iskuulkan laga goostay oo maanta maamulka iyo macallimiinta dugsiga ku jira waa iskuul in badan deegaanka iyo dadku ay manfaacsadeen iskuulkan taariikhdiisa iyo cidda garab istaagtay haddaan ka warramo boqolkiiba boqol waxaa iskuulkan dhistay deegaanka iyo dadkiisa waxaa gacan la xaalad ka geysan jiray diasporada iyo dadka qurba joogta ee deegaankan ay leeyihiin wuxuu iskuulkani soo maray maraaxil runtii ay la soo dabaasheen dadka iyaga ah maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin waa iskuul kamid iskuulada gobolada waa iskuul ubaxa Soomaaliland oo soo baxaya qayb kamid ah abqaala sidoo kale biyeeya iskuulkan waxaa ka howlgala macallimiin badan hal macallin mooyane macallimiintu dhammaantood waa bilaa mushahar ama waa volunteer teachers waxay u baahan yihiin macallimiintani in la garab istaago si iskuulka shaqadiisa ay u sii socoto sidoo kale iskuulkani waa iskuul ardayda dhigataay uu waraabiyo hal dugsi oo hoose dhexe taasi waxay keentay markaa numberka ardaydu inay yaraadaan marka numberka ardayda dugsigu si dhaqaale fiican oo macallimiinta kafeeye loo helo ma ay noqon kuwa badan tan noocaasi way jirtaa macallimiintii dugsiga ee iskuulkani waa shaqeynayaan sida aad idinka muuqata iskuulku waa iskuul fakshana waxaanu ku guuleysanay intii aanu nimi in iskuulkani waxa weeye la helo adeeg waxbarasho dhammaystiran complete subjects ardayda inay qaataan ardayda in la manage gareeyo oo lagu jiheeyo xagga tacliinta iyo waxbarashada iyo aqoonta taasoo durtaba ka muuqata ardayda iyadoo aad wareysan doontaan ardayda laftigooda xogtan aad ka heli doontaan dadaalka iyo focuska waxaanu saarnay in deegaankan yar ee ka baxsan
ama ka go'an magaalooyinka waaweyn inkastoo laami ku yaalo inay ubadkiisu la tartamaan kuwa Hargeysa kuwa Ceeri Gaabo iyo kuwa magaalooyinka Burco kale ku yaala inay la jaan qaadaan oo tacliin tayaysan ay helaan macallimiinta dugsiga wax ka dhigaa waa macallimiin graduation oo heer jaamacadeed alxamdulillaah rabbil caalamiin taasi waa inta noo qabsoontay halkan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan fariin u diro dadkii khayrka badnaa ee iskuulkan dadaalka iyo tacabka faraha badan la gashaday ay number 1 ka yihiin dadka qurba joogta ee deegaanka walaalayaal iskuulkan tacab fara badan baad soo geliseen heerka maanta uu marayo falilaahi alxamdu bacda xamdillah idinka ku maadsan tiraba 3 bilood lacagtii dibadda laga soo diri jiray macallimiinta bilaa mushaharka ay ma helin way ka maqan tahay si kasta ay u maqan tahayba waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba codsi iyo fariin baa ugu diranaa dadkii khayr qabayaasha ahaa ee arrinta noocan waxa weeye ka gacan geysan jiray in ay waxa weeye sida ugu dhaqsaha badan la ka soo jawaabaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin sida ay soo sheegay maamulaha iyo ardayda iyo macallimiintii kaleba waxa weeye iskuulka baahiyaha ka jira baahiyahaasi way fara badan yihiin oo baahiyo fara badan bay noqonayaan markaas waxaan ugu baaqaynaa cidda ay fariintani ku socoto inay sideeda u ajiibto ayaan ugu baaqaynaa kulay macallimiintii hore hadalkii dhameeyay baahiyihii dhameeyay wixii iskuulku u baahnaa waxaanu wax baraynaana waxa weeyaan mustaqbalkeena iyo generationkeena dambe aynu soo saarayno ubadkeena inaynu ubad fiican cilmi barno geesta kale qaar ka mid ah ardayda iyo guddida dugsigaasi ayaa iyaguna ka hadlay xaaladda dugsiga sare degmada Wadaamago waxaanay baaq u direen qurba joogta deegaanadani ku abtirsata inay si degdeg ah wax uga qabtaan kuwaasi oo ay sheegeen in muddo 3 bilood ah wax mushaharada la siin anigoo ah gudoomiyaha guud ee beelaha Salamadow Salaaman Faarax Gaariye waxaan halkan baaq uga diraya ama fariin aan uga diraya oo aan kala maarmi waayay iskuulkaasi iskuul dad muxsiniinihii iskuulka awalan waxa bilaabay dadka bilaabado dawlad kafaalo qaadatay iyo dawlad bilowday ma jirin dadku inay wax bartaan baa loo bilaabay tacaawun iyo isu imaad baa lagu bilaabay in badan buu socday marxalado badan buu soo maray maanta ugu dambeyntii ardaydii way yaraatay tiradeedii wixii laga qaaday iyo wixii wax lagu barayay way kala bateen ardayga $20 baa laga qaadaa tiradoodina way yaraatay 5 macallin oo aan deegaanka ahayn oo waliba kuwaala tiro oo jaamiciyana baanu keenay waxa isdabooli waayay wixii ardayda laga qaadayay wixii macallimiinta baahidooda dabooleysay waxa jirtay dad u dhashay deegaankan oo jaaliyada oo hablo iyo inamaba leh oo tacaawun bixin jiray oo iskuulka kaabi jiray ilaahay xigmadii maalintii ugu tayada wacnaabay wixii la waayay waxay ku gooday iyo waxa lagaga tanaasulay waanu garan weynay baaqa aan diraya waxa weeye dadkii muxsiniinta ahaa ee khayrka qabay ee waxa yar iskuulka ku kaabi jiray ee dadkooda iyo dalkooda iyo aaqiradooda iyo adduunkoodaba ay kor ugu qaadayeen waad goyseen ha goynina baan dirayaa ku dadaala wixii soo bixiya waanu idin ducaynaynaa waad ka faa'iideysaan aakhiri adduunkaba waydan anfacaysay waxay idin ahayd maxaan ku ilaahdayay wax boosta aakhiri iyo adduunkaba idin buuxinaysa Allahi wa barakaati waxaan dhamaan salaan balaadan oo duca iyo qiimo fara badan aanu halkan u marinaya hawada qurba joogta gobolka Saraar qaasatan qurba joogta reer Wadaamago waxaan idin leeyahay oo aan halkan idinka soo jeedinayaa idin soo marinaya baaq dheer oo waalidiinta iyo aan ka xambaarsanay hooyooyinka iyo degmada Wadaamago iyo dugsiga sare aan ka xambaarsanay waxaan idin leeyahay waxa weeye Nimbati Maxamed waxa la idinka doonayaa sida dugsigiina hore u marin lahaydeen run ahaantii anigu xogaal badan baan ahay waxaan ahay dadka ardayda macamadaha iyo wax walba hoos u aan hawada idin soo marinayaa qurba joogta reer Wadaamago qurba joog waliba dadkeedu way ku filaatay idinkana waxa la idinka doonayaa inaad ku filaataan dadkiina si aan ardaygiinu u hanjabin oo hoos ugu dhicin oo aan ilaahay hadduu idankeeda leeyahay maxay ahayd aan u wareegaalaysan oo aan ardayda uga hadhin oo aan u han yaraan in ardayda hanka u soo qaadaan baa la doonaya oo wixii doorkiina ka ciyaartaan oo ka qaadataan si fiican doorkiina uga qaadataan oo aydan ka habsaamin xagna ilaahay jahdigiisana waxa ka helaysaa wax wanaagsan oo arrintani waa khayri ayaa la ciga ducaale Bukhari degmada Wadaamago ee gobolka Saraar